السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز تحنيني جوانا جيسين ملا وأنا كسوق على مرة بهاي مسلمين جوانا جيسين ملا قاطي دنيا النوح بدن كبدلة مقال كلمات وحكي قال لنا إنك استحاد وفضل قبل المسلمين تا مركز لقي معدني محمد صلى الله عليه وسلم وحكي لي كور يا بكر صديق يا عمر بن الخطاب وأنا عثمان بن عفان إلى كرر النقطة إنك المقال كإنك قال لنا نسهل الماهن وتاريخ تيسكم مسوق بكرنو هالمقالة سواء كلا جوانا جيسين ملا وقاتين تنولش سوون ولا عثمان بن عفان إلى كرر النقطة وحكم يا رجل يقول دينta islaamka qaatay waana ninkii ugu horeeyay ee Ilaahay dartii u hijrooday Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa mardahay cidii masaajidka nabawiga ballaadhisa jannay leedahay Usman bin Affan isla markiiba lacagtiisa ka bixiyay oo guriyihii masaajidka agtiisa ka dhisnaa oo dhan iibsaday masaajidkina ballaadhiyay marka waxaanu ka hadlaynaa nin ahlu janna soo kale wuxuu ka mid ahaa 10kii lagu bishaareeyay jannada soo kale Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa dhahay cidii diyaarsa ciidanka cusra jannay leedahay ciidanka cusra wuxuu ahaa ciidankii ghazwadii Tabuk muslimiinta waqtigaas dhaqaaleeyay ay haysatay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu bishaareeyay janno cidii diyaarsa ciidankan Tabuk Usman bin Affan ilaa ka noqday ayuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ciidamada diyaariyay agabkoodii oo dhan bixiyay maahan markii koobaad iyo markii u dambeysay toona lacagta intaas lagu ka bixiyo xuliisa Usman bin Affan waxaanu ka mid ah ganacsatadii waaweyn ee muslimiinta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa ku sufiyay Usman bin Affan in malaa'iktu ka xishooto malaa'ikta laftirkeedii ayaa Usman bin Affan ka xishoota wanaagta nin heer ka gaaray in go'aamadiisa hal muuqaal ku soo koobno Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu guuriyay Usman bin Affan gabadhiisa Ruqayya muddo markii laga soo wareegay ilaa ka noqday Ruqayya way geeriyootay haddana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu guuriyay gabadhiisa labaad ee Kulthum soo kale muddo markii laga soo wareegay Kulthum way geeriyootay ilaa ka noqday waana markii ugu horeysay ee hal shakhsi wada guurso laba gabdhood oo nabi dhalay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii labadii gabdhood ka geeriyoodeen Usman bin Affan ilaa ka noqday wuxuu ku dhahay hadda gabadh saddexaad ahayn lahaa oo ku guurin lahaa go'aankan wuxuu ahaa go'aankii ugu dambeeyay Usman bin Affan uu qaatay intuu dunida joogay waxaanu qaatay go'aankan geeridiisa waxoogaa koor waana go'aankii ugu dambeeyay noloshiisa waxaanu ahaa inuu shahiido inuu isagu naftiisa halis geliyo suu badbaadiyo muslimiintii Madiina joogtay hadaba xoogaa isdul taagno go'aankan geesinimo leh oo Usman bin Affan qaatay sanadadii u dambeysay Usman bin Affan xukunkiisa muslimiinta fitan badan ayaa soo dhex gashay hadda xasuusataan muuqaalkeena hore ee Umar bin Khattab kaga hadlaynay waxaan ku sheegnay in Umar bin Khattab 17kii hijriyada joojiyay furashooyinkii muslimiinta macnaha ciidamada muslimiintu inaanay magaalada dambe furanin oo bartooda joogan maadaama muslimiinta qanaamaad fara badan soo gashay go'aankaas kadib ciidamadii furuusa kala fardhada muslimiintu reedeen waxay bilaabeen dib isku soo urursadaan dib isku soo abaabulaan ayna bilaabaan in muslimiinta magaalooyinkii isku dayeen dib uga soo qabsadaan Umar bin Khattab haddana dib ayuu bilaabay furashooyinkii laakiin وقريده لهي كرا نقطة 23 هجرية عثمان بن عفان أنا حكم كقبطة عثمان بن عفان سنددي وهري حكم كيسا مسلمين فرص ورا ما يقبسان معنا خريرة داي كمسحين دولة لو مقعاب جري فرص ورا مقالين كورن وكقبسان سوق رينا اللوبين قنايمتنا مسلمين أيوب سيف ربضت حسن البصري لهي كرا نقطة وحول ليه هاي وقت عثمان بن عفان مسلمين حكومي قنايمته يلعقتو أفرت الجهة أي مسلمين تكسوق جليين markaas muslimiinta inta loo dhawaaqo loogu yeeri jiray kaale oo qaata lacagtiini kaale oo qaata xaqiini iyo xoolihiini hadaba muuqaalkeen waxaan kaga soo hadalnay oo Umar bin Khattab ilaa ka ranquu ka baqay ayaa dhacay waana in muslimiintu ku tartanto qanaayimtan fitanna ka dhaxaburman laakiin muslimiintu dhan ma waxa ku fitnoobay qanaayimtan ee xoogaa yar oo kamid ah muslimiinta ay ahaayeen waxa ku fitnoobay ee muslimiinta dhibaatada ka dhaxaburi doono midda labaad Umar bin Khattab ilaa ka ranquu shaytaanka ka baqay jiray منافقينتي وقت يوم مسلمين كل إحنا ولا كومين ديرين شر مرنا بين الدين توح خلاف سن سميان ما دام عمر كبقى شرين لكن عثمان بن عفان ما هننشل عسن كون هذا عثمان بن عفان ننشل عسن أيها حكم كيس ننشل عسنا ما هن قفش عسن أنه محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنين لبقى من الجبريسة قفش عسن كما آمنين عثمان بن عفان ده بعد هند سوحة هنين دقن قرايا بلا مركاينا نينكن دقن كفايسان أو فتنة كده حبوران waxaana bilaabmay oo qolooyin yar munaafiqiin bilaabeen in mudaharaad ku kaciyaan xukunkii Usman bin Affan Usman waqtigan wuxuu ka tinay dul aad u ballaaran laga soo bilaabo Shiinaha ilaa iyo Morocco 12 sano Usman bin Affan tinayna muslimiintu waxa ku noolaayeen barwaaqo aadam mudaharaadada Usman bin Affan lagu kaciyay dhamaantood wax khaldan ay ahaayeen badankoodu la fadhiistayba oo uu qanciyay waxa u socdeen oo kala hadlay waana qancaan iska noqdeen mar walba kacaan oo bilaabaan mudaharaad Usman bin Affan uu la farsan jiray oo uu la hadli jiray oo qanci jiray oo iska noqon jiray dhamaantood
ilaa laga soo gaadho sanadii 30aad ee hijriyada sanad kamid sanadii ugu darnaa ee muslimiinta soo marta. haddaba sanadan qolooyin Cusmaan ka soo horjeeday ayaa waxaas ka soo ruseen magaalooyinka muslimiinta Basra iyo Kuufa si Madiina u tagaan oo Cusmaan bin Affan xukunka uga ridaan. waxaan iskugu jireen qolooyinkani yahuuda oo inuu naqaan shartooda marka hore iyaga iyo qolooyin kale oo rabay dawladii Faris inay ku soo noqoto dhulka muslimiintu qabsadeen oo waxay rabeen muslimiinta khalkhal ka dhaxabuuraan si dawladda muslimiintu u burburto. qolada saddexaad waxa ahaayeen qaar muslimiin ah laakiin dad wax isku ahaayeen ama aqaaribtooda kamid ah shariicada islaamka lagu fuliyay oo tusaale ahaan hadii wax xadeen oo kale gacanta lagu gooyay hadii qof dileen oo kale qisaaskii la mariyo iyagana la dilay. macnaha shariicada islaamka ay ka soo horjeedeen una arki karna waxa uu socdaan in wax khaldan yahay dhamaantoodba. waxaas oo dhan soo rusay ayaa waxay bilaabeen inay tagaan Madiina go'doomiyaan magaaladii iyo caasimadii muslimiinta. raggan soo rusaday magaalooyinka muslimiinta iska soo rusaday rabeen xukunka Cusmaan ridaan waxay taradoo gaarsiisay 3,000 nin. 3,000 ayaa go'doomiyay Madiina oo ay ku jiraan 700 oo qof kaliya. waliba 700 ee Madiina dhex joogtay waxay ahaayeen asxaabtii waaweyned النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دح joogin ummadiisi asxaabtu kaalinta kuleedan dareemi karna sababta tiradaas yar Madiina u dhex joogtay muslimiinta ahana waxay ahaayeen asxaabta badankood waxay ku kala fararsanayeen daafaca caalamka oo jihaad kaga jireen diintana faafinayeen. soo kale waxay ahayd waqtigii xajka oo asxaab badan ayaa xajka tagay marka 700 kaliya ay ku soo haray Madiina oo Ali ibn Abi Talib kamid ahaayeen. haddaba raggan isa soo rusay Madiina haraarey markii hore ay mudaharaadeen Cusmaan bin Affan wada fadhiisteen waanu qanciyay laakiin markan waxa soo celiyay waxa ahaayeen waxa idhaadeen waxaan aragnay waraaqada Cusmaan oo adigu qortay oo aad ku sheegay ciidamada Shaam jooga inay dilaan marka waraaqadaas aan aragnay oo waxaan dareennay inay dilayso laakiin waraaqadaas Cusmaan ma qorin mana oran hadalka waraaqada ku qornay. Cusmaan laftirkiisa ayaa u dhaartay oo ku dhahan waraaqadan ma qorin mana amrin in la idin dilo wax la idin yeelo laakiin nimankan markooda horeba ma socon waraaqadii waxaas iskaga marmarsiineen ee waxa rabeen in xukunka Cusmaan ridaan muslimiinta khalkhal geliyaan. haddaba xaggan marka la joogo ayaa Cusmaan bin Affan go'aankiisa geystay ma la qaadan doona ee muuqaalkan maanta kaga hadlano. Madiina waxa ku haraarsan 3,000 nin muslimiinta Madiina dhex joogtaan waxay ahaayeen 700 nin kaliya. Cusmaan bin Affan marka laba arrimood mid u hortaalay inuu nimankan la dagaalamo oo muslimiinta 700 asxaabtu waa shahiidaan muslimiintuna asxaab badan barta ku khasaaraan cilmi farar badanna uu ka lumo caasimadda muslimiintuna khalkhal gasho. talabaadna waxay ahayd inuu nimankan uga tanaasulo xukunka taasina sax ma aha sababtoo nimankan niman tuuga muslimiintana lagu maamuli karo. mid kale Cusmaan bin Affan khasab kuma iman ee muslimiinta ay dooratay oo xukunka u dhiibatay marka muslimiintu ku sii daayo nimankan codadu ka buuxdo iyana arin may noqon. Cabdullah ibn Umar ilaa ka noqday ayaa Cusmaan bin Affan intuu mid weydiiyay dunida waliga ma joogaysa markaas Cusmaan ugu jawaabay maya nimankan maayaga naariya janno ku hayo markaas ugu jawaabay Cusmaan maya markaas Cabdullah ibn Umar ku dhahay shaarkan Ilaahay ku xoray haw bixin nimankan macnaha xukunkan Ilaahay ku dhiibay nimankan tuugada iyaga dartooda haw bixin hadii kale waxay noqon doontaa sunne oo qolo walba munaafiqiina oo dabcadeen muslimiinta khalkhal geliyaan intay soo urursadaan ee caasimadda muslimiinta go'doomiyaan ay xukunka ka toori doonaan adiga dabada sunna ay noqon doontaa haddaad uga tanaasusho raggan. haddaba Cusmaan bin Affan laba arrimood mid u hortaala inuu 700 nin dibadda loo baxo oo kula dagaalamo asxaab badan barta ku sheeydaan muslimiintana khasaare fara badan soo gaaro maadaama raggan ka tira badan yihiin 3,000 nin yihiin caasimadda muslimiintuna khalkhal gasho. arrinta labaadna waxay tahay inuu nimankan habsaamiyo ama waqti badan ka lumiyo oo waraaqada hoos u diro ciidamada muslimiinta Shaam joogtay si uga soo gaaraan nimankan iyo go'doonka Madiina ku socda. ruuxaantina ciidamada Shaam jooga in Madiina yimaadaan waqti fara badan ay ku qaadanaysaa nimankan hadii fahmaan arrintaas Madiina gudaheeda inta soo galaan ay Cusmaan halis geli doona. haddaba asxaabta Madiina joogtay oo Ali ibn Abi Talib ugu horeeyay dhammaantood waxay kula taliyeen oo seefaha u qaateen in raggan la dagaalamaan dibadda u baxaan. Cusmaan bin Affan amarkiisa ay sugayeen oo mar walba waxay ku lahaayeen aan banaanka ugu baxnaan dibadda la dagaalano. Madiina waxay joogay dhammaantood isku wada raaceen raggan la dagaalamaan iska dhiciyaan laakiin Cusmaan bin Affan uu ka diiday sababtan uu sheegi doono. Cusmaan bin Affan ilaa ka noqday wuxuu ka baqay in 700 saxaabi waaweyn ay bartaas ku dhintaan muslimiintuna cilmi badan khasaaraan. سادرت عثمان بن عفان دور بدو أو دورتي إنه نفتي سيحكم كيس هالس جريو لكن هاي بدبادان تضاضى بقول الصحابية وين قوان كانوا كلام متشر مدحونا قاعدين أو نفتي سهالس جريني سو شعب كيس يدد كيس وبدباديو أو سوق دمشق دور بدي أنت شعب كيس ودباتو بالعين وحكى فكرة عثمان بن عفان لا كرر تضاضى بقول الصحابة ده جريو ذن مسلمين تمحوسوا عليه ومدى دنبايو كفكرة علمي أيو إلى داديس عثمان بن عفان 8 سنة يكور دافتي ساسي تهادنا قوان كان يقاتي ونفتي سو هاليز قلي سو بدبادية مسلمين تا وقدمت اللي منكي كوارا رسنا مدينة
madiina gudaheeda ay soo galeen Cusmaan bin Cafaan gurigiisa ay ku haraarayeen xagaas ayna ku dileen uu ku sheegay Cusmaan bin Cafaan Ilaahay ka raali noqdo waxaan badbaadiyay nafiye badnaa ku noolaa Madiina wax dhibaatana ma soo gaarin naftiisa ayaan u horay soo badbaadiyay asxaabtii soo kale xukunka ugu ilaaliyo nimankan tuugada go'aankan geesinimada leh ee Cusmaan bin Cafaan qaatay cid qaadan kartaa ma jirto ilaa qof ka soo baxay madrasadii Cusmaan bin Cafaan mooyee mar Ali ibn Abi Talib la weydiiyay sababta maxaa u daawanaysan inta Cusmaan bin Cafaan la dilay wuxuu ku jawaabay Cusmaan bin Cafaan wuxuu ahaa imaam soo kale wuxuu ku soo rogay Madiina inaan seef la soo bixi karin cidna la dagaalami karin qofkii seefta la soo baxay isku dayn dagaal bilaabaana aan ummadeeda kamid ahayn sadarteed cid Madiina joogto seefta la soo baxay dagaal bilowday ma jirin iyagoo fulinaya amarka Cusmaan bin Cafaan Cusmaanna sababtu saawir waxa ahayd wuxuu ilaalinay inaan Madiina gudaheeda dagaal ka dhex bilaaban oo asxaabtu iyo shacabkii ku noolaa meesha dhibaatoobin maadaama raggan rag tuuga yihiin ayna ka tirabadin muslimiinta sababta Cusmaan bin Cafaan sida uu nooca ahayd dagaal ay ku ilaalin Madiina si aan asxaabta dhibaato soo gaarin naftiisa ayaan u horay Ilaahay ka raali noqdo Cusmaan bin Cafaan iyo dhammaan asxaabtii waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido qisadan aad ka quruxda badan falcelintaadana commentiga hoose noogu reeb wassalaamu calaykum